marka hore isma aragteen dhalinyarada waxa ku dhacay Soomaaliya joogta ya inay markay iskuul bay wada galayaan iskuulkii bay ka soo baxayaan jaamacad bay galayaan way ka soo baxayaan shaqo ma jirto ya bal markaad waalidka kula soo dadaalay intaasoo sanadood ya uu rajo wax la wuxuu lacag haystay wuxuu kharashii adigii ku galiyay eed ka soo baxday iskuulkii ee hadana guriga soo fadhiisato ya ilmi maxaa ku dhacaya psychologically ya sidaa darteed bay badda iskugu tuurayaan ya maxaa heeday oo ku dhimanayaan oo saxraaga ku dhimanayaan oo yaani filimada laga soo qabtay dad aragto caloosh ku xanuunaysa ya waa dhalinyaradii Soomaaliya joogtay ya han ka hadlo dhalinyarada halkan joogta ya markaan kala socday dawladda 2013kii waxaan la kulanay police commissioner-ka ayaan kula kulanay caasimadda Ottawa marka waxaan weydiinaynay dhalinyaradan dhimanaysa Soomaalida maxaa ugu wacan maxaa waxaan keenay wax ana filim buu nagu yiri ya iyo shaqaale aanta maxaa keenay baan ku niri maxaa soo xuga qaban weydeen wuxuu yiri waxa keenay buu yiri bal waa very important dadka Canada jooga inaad fahamtiin arrintan ya waxa keenay buu yiri rajo xumada Soomaaliya waxaan notice gareynay buu yiri marka Soomaaliya war fiican laga keeno ya inay dhalinyarada Soomaalida wadanka joogtaay ay degaan ya oo iskuulka doonayaan oo rajo gasho buu yiri marka Soomaaliya wax xun laga keeno buu yiri ya war xun laga keeno ay guriga ku soo maqlaan then they act up ya markaas ay dhibaatooyin galaan buu yiri waan u fiirsanay waan study gareynay buu yiri